بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى وحين كلمة كوبان كتلمامي دونا توبانك رمضان دنبه فضل إلى هاي سيدنا الله سعننا وحين صوغلني توبانكي دنبه رمضان يا إنو بلوضي ما كسي إنو وجود دالنا إن شاء الله تعالى توبانكاسي ayaynu isku baraarujinaynaa fadliga ay leedahay. marka hore bisha ramadaan waa bil aad iyo aad u fadli badan. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ka dhigay bil dembi dhaaf. rasuulkeena inoo sheegay calayhi salaatu wassalaam, man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min danbihi. qofka bisha ramadaan sooma isagoo ilaahay rumaysan subxaanahu wa tacaala iyo ballankiisa iyo yaboohiisa rumaysan, أجرنا إلهي كوي دي سنة يا إلهي ودم بدافع يا سبحانه وتعالى. مكا بيشنا وبيشي دم بدافع وصونك قفك وصومي إلهي دم بيجيسي مركاسي كدافع يضع عين كاسيه تهي يا هذا نتمنى كدم به وحو يفضل آذو فربضا إلهي ونحيد مركاسي ويالي سياد دومه يقف عيدستان. قفكي بيش رمضان انت دي هورا قابيي وحلقة دونا يا حق الدم بينونا قابيني وقنتي مركاسي ديشا وسكي قدم. rasuulkeena calayhi salaatu wassalaam aad iyo aad buu ugu dadaali jiray tobanka dambe, isagoo bisha ramadaan wada dadaala iyo haddana tobanka dambe si gaara ayuu sii dadaali jiray. waxaa fii saxiixi muslim ku sugan min xadiidi caaisha radia allahu canha inay caaisha tidhi kaana yajtahidu fi lcashri alawaakhir maa laa yajtahidu fii gayrihi. rasuulka calayhi salaatu wassalaam waxa uu ku dadaali jiray tobanka dambe ee ramadaan in aanu gayrkood markaasi ugu dadaali jirin. يعني maalmaha kale intuuna dadaali jirin iyo habeenada kale ayaa uu tobankaasi aad iyo aad markaasi u dadaali. dadaalkiisaasi caasha inoo sii sheegtay radiyallahu canha sida bukhaari muslim ku sugan, waxay tidhi idaa dakhala alcashr shadda mi'zarah wa axyaa leylah wa ayqada ahlah. marka tobanka dambe ee ramadaan uu soo galo, shadda mi'zarahu guntigiisa ayuu adkaysan jiray oo guntiga ayuu dhiisha iskaga dhigi jiray. wa axyaa leylahu habeenkiisana waa noolayn jiray. wa ayqada ahlahu ehelkiisana waa toosin jiray. guntigu dhish iskaga dhigayayo cibaadada ayuu camirayuu shamiray. cibaadada noocyadeeda kala duwan ayaa rasuulkeenu sala allahu calayhi wa aalihi wasalam oo markaasi ku shamirayay oo ku nooleynaya habeenkiisaasi. ahlu cilmigu markaas waxay tilmaameen shadda mi'zarahu laba macno waa ku tilmaameen. waxay sheegeen qofku marka uu camal qabanayo ee uu doonaya camalka si wanaagsan inuu qabto, marada dhexda ayuu ku xidhaa, marka camalka ayuu si fiican u qabanayay wey. waxaa kale tilmaameen yani habeenadaasi dumarka ayaa ka fogaanaya. labada macno markaas waa ku micneeyey. wa axyaa leylahu habeenkiisi waa nooleynay. habeenku muxuu ku nooleynaya rasuulka calayhi salaatu wassalaam? waxa uu ku nooleynaya anwaacda cibaadada kala duwan. salaad ayuu ku nooleynay, qur'aan ayuu ku nooleynay, dikriga oo ah markaasi carabkii iyo qalbigii labadaba ayuu ku nooleynayay. anwaacdii cibaadadoo dhan buu rasuulkeena ku nooleeyey sala allahu calayhi wa aalihi wasalam. wa ayqada ahlahu intaasoo keliya maaha, welibana ehelkiisana waa toosin jiray si ay cibaadadaasi markaasi uga qayb qaataan iyo daacadaasi ula yimaadaan. fadliga intaa fadliga faraha badan lee ku jira habeenadaasina ay markaasi ay la kulmaan. sidaas buu rasuulkeenu ahaa calayhi salaatu wassalaam. waxaa markaas iyadana ina sii tusinaya in tobankan dambe fadliga ku jira inuu leylatulqadriga markaasi ku jiro habeenadaasi. inna anzalnaahu fi leylatin mubaaraka. waxaa kale ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala inna anzalnaahu fi leylati alqadr. habeenada tobankaa dambe waxaa ku jira leylatulqadr. habeenkaa leylatulqadriga abuu ilaahay qur'aanka soo dejiyey. inna anzalnaahu fi leylatin mubaarakatin. waxaanu qur'aanka soo dejinay habeen barakaysan. barakada ku jirta waa khayrka markaasi faraha badan leh ku jira ayaa barakadaas ay tahay weeyaan. yani waa habeen aad iyo aad u khayr badan weeyaan. waxaa kale ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala inna anzalnaahu fi leylati alqadr. qur-aanka waxaanu soo dejinay habeen weyn oo sharaf badan ayaanu soo dejinay. wamaa adraaka maa leylatu lqadr leylatu lqadri khayrun min alfi shahr. halka ilaahay wuxuu noogu tilmaamay subxaanahu wa tacaala in habeenka leylatulqadrigu ka fadli badan yahay 1000 bilood inuu ka fadli badan yahay. khayrun min alfi shahr. 1000 bilood buu la ajar yahay maaha, 1000 bilood buu ka fadli badan yahay weeyaan. marka qofka habeenkaasi la kulma ee camal wanaagsan markaasi sameeya
ajri fara badan ayaa ula kulmaya habeenkaasi haddii aad salaadaada tukanaya aad la kulantid ama qur'aan akhriya ama cibaadaysanaya ama ducaysanaya fadliga intaa lig ayaad helaysaa weeyaan marka habeen la dhayalsada maaha waa habeen aad iyo aad u fadli badan weeyaan man qaama laylata alqadr iimaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min danbih qofka habeenkaasi qiyaamu leyl la yimaada ee kaca waxa weeyaan isagana dembi dhaaf ayuu helaya dembi dhaaf ayaana lagu helaya iyadan waxaa rasuulkeena inoo sheegay sala allahu calayhi waali wasalam tobanka dambe ee ramadaan inuu markaasi uu ku jiro habeenkaasi leylatulqadriga ee fadliga badan tobankaa dambe ramadaan baana lagu qariyey waxaa addoomaha looga qariyey inay addoomuhu markaasi ay dadaalaan oo dadaal fara badan ay la yimaadaan dadka ay kala baxaan oo kii dadaalayay kii aan dadaalaynin iyo kii caajiska ahaa iyo kii markaasi wax weeyaan firfircoonaa iyo ninkii wanaagga doonayay iyo kii ka seexanayay inay markaasi ay kala baxaan addoomuhu way kala baxayaan marka waa imtixaan weeyaan addoomaha lagu imtixaamaya marka ha noqonin ka seexanaya ha noqonin ka hadhaya ha noqonin ka caajisaya ee waxaad noqotaa ka dadaalaya ee habeen oo dhan waxa weeyaan cibaado ku camiray salaad hadday noqoto iyo hadday qur'aan noqoto hadday dikri ay noqoto hadday sadaqa noqoto hadday noqoto anwaacda cibaadada ee markaasi kala duwan oo dhan tobanka dambe waxaa lagu sii rajo badan yahay habeenada markaasi kala dhiman 21 23 25 27 29 sidoo rasuulkeena noo sheegay calayhi salaatu wassalaam laakiin taa micnaheedu maaha in habeenada kale ee shafcigan ay ka maqan tahay culimada qaarkood waxay sheegeen in habeenada laftoodana uu markaa leylatul qadriga uu geli karo taa markaa waxaa ka dhalanaysa tobanka dambe ramadaan oo dhan habeenada kala dhiman iyo habeenada aan kala dhinnayn intaba in markaa lagu dadaalayo markaa cibaadaadkii iyo khayraadkii iyo daacaadkii waxaa culimmadu ay sheegeen habeenka leylatul qadrigu habeen mucayan oo gaar inuuna ahayn ee tobanka dambe uu ku dhex jiro gaar ahaanna habeenada witrida uu kusii jiro loo rajo badan yahay inuu habeenada kala dhiman oo markaasi uu ku jiro waxaa kale sheegeen ahlucilmigu in uu guurguuro oo sanadba markaasi meel u galo sanadba habeen buu gelaya sanad waxaa laga yaaba 21 inuu galo sanadna 23 uu galo sanad 25 uu galo sanad 27 uu galo marka in aad loogu dadaalo waxaa kale axaadiista qaar kamid kusoo aroortay 27 loogu rajo badan yahay taa micnaheedu maaha habeenada inteeda kale waa la seexanaya 27 uunba markaasi lagu dadaalaya maaha 10 dhan baa lagu dadaalaya sida rasuulkeenu ugu dadaalaya calayhi salaatu wassalaam marka tobanka dambe ee ramadaan oo dhan ayuu leylatul qadrigu ku jiraa waa laga wada raadinaya habeenada witrida ah ee rajadu ay badan tahayna si aadaba looga sii raadinaya weeyaan dadka qaar ka mid yihi waxaa dhacda inay habeenada shafciga tirada buuxda ah inay markaasi ay iska seexdaan habeenada tiradu kala dhiman tahayna inay iyadana markaasi ay dadaalaan taasi sax ma aha saxdu waxa weeyaan tobanka dambe oo dhan in la wada dadaalo si khayrka markaasi oo qofku ula kulmo waxa Aisha ka sugnaatay radiyallahu anha inay rasuulka ku tiri sallallahu alayhi wa alihi wasallam rasuulki ilaahayow waxaad ka warantaa haddii aan ogaado habeenka leylatul qadrigu ku yahay maxaan idhaahdaa way tiri kaas rasuulku wuxuu waxaad tidhaahdaa allahumma innaka cafuwun tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma innaka cafuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ducadaasi markaasi aqra wala kaalibu rasuulku yiri alayhi salaatu wassalaam halka waxaynu baraarujinayna ducadaasi rasuulka ayaa baray Aisha radiyallahu anha sida uu baray baana loola imanaya waxna lagu ziyaadin maayo waxna laga nusqaabin maayo dadka qaar ka mid yihi waxay ku ziyaadiyaan waxna allahumma innaka cafuwun kariimun lafdiga kariim ducada kuma soo aroorin oo kuma sugna sida awgeed ducada rasuulka sugnaatay sallallahu alayhi wasallam balaaq sida loo aqriya allahumma innaka cafuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ilaahay waxaan ka baryaynaa subhanahu wa ta'ala bisha ramadaan inuu ina dambi dhaafo kuwa naarta laga xoreynayna ilaahay naga yeelo cibaadaadkana ilaahay uu inaga aqbalo inta hadhayna caafimaad qab inoogu dhameeyo wa sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in